les oo ogeyn haddaan sheegaynaa burburka waddankeena gaaraan dhalinyarada waxa uu keenay qabyaalad qori iyo qabiil saddexdaas ayaa maanta waddankeena burburiyay waxaa la yidhi maxaa lagu bedelaa waxaa lagu bedelaa tacliin taqwo iyo toobo haddii saddexdaas shay lagu dhaqmo maanta Soomaal raas Kaamboon ilaa raas ay juur jawaay waxay noqon doontaa nabad aniga waxaan qabaa saddex su'aal kow ma jiraa siyaasad iyo istiraatiiji la jaan qaadi karta dhalinyarada maanta midda labaad waxay tahay maxaa loo waayay doorka dhalinyarada ka qaybgalka doorashooyinka maxaa loo waayay midda saddexaad maanta waxaa laysku muray oo jira waxaa la yiri matalaada qoondada haweenka maxaa loo waayay matalaada qoondada dhalinyarada ay ku lahan karaan baarlamaanka ama meel kasta ay tahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh